waxaynu ka baranaynaa abwaabtan ku saabsan timaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ana nabiya calayhi salaatu wasalaam kaana yukrimu shacrahu rasuulku calayhi salaatu wasalaam timihiisa wuu hagaajin jirayoo waa maamuusi jiray ma dullayn jirin inuu ninku isku mashquulo oo sida dumarka uu dee timihiisaba ka dhammaan waayo arrinta noocaasiya rasuulku waa diiday iyadoo timihii la ikraamayo la nadiifinayo o la hagaajinayo haddana in lagu mashquulo oo dee maalin walba iyaga un faraha lagula jiro arrintaasi ninkii xagga dumarnimaday u dhoweynaysa ninka raggana waxaa laga rabaa se cumar ibn khadaab radia allahu canhu uu ku taliyey rag waa in noqdaan rag ad adag sida dumarka oo kale wax jiljilicsan ninku inuu noqdo maaha oo faracasa waa inaad kuuliga gasho dhagaxa aad qaado si ay farahaaga u adkaadaan fara yaroo cascasoo markaad wax yar qabataba biyo ay gelayaan looma baahna taasi raganimada meel bay kaga dhacaysaa shawshan macnaa khushuunada iyo adeyga iyo qalafsanaanta xagga jidhka ku dadaala marka cuntada faraha badana ku balqinaysa ee suurada dumarka oo kale kuu yeelaysa iska ilaali jimicsigana ku dadaal sheekhuna sheekh muqbil raximah allahu tacaala aad buu ardaydiisa ugula talin jiray inay jimicsadaan lugee gaadhi una saarnaane jimicso oo waxa weeyaan orad iyo jimicsiyada kale intaba samee qaala xafidahu llahu tacaala baabu khidaabi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam hada baabu khidaabi rasuuli illah rasuulka ilaahay waxmarsashadiisii madaxiisa inuu waxmariyo baabkii ka warramayay kani weyi can cuثmaan ibni cabdillaahi bni mawhabin qaala wuxu uhi dakaltu waan galay calaa umi salama baan u galay radia allahu canha saxaabiyadii umu salama la odhan jiray waxay ka mid ahay umahaat lmuminiin xaasaskii nebiga calayh salatu wasalaam ayay ka mid ahay fa akhrajat waxay soo saartay ilayna annaga waxay noo soo saartay shacaran timo min shacari nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka timihiisi ka mida makhduuban timahaasi oo ah kuwo la midabeeyey ee mulawanan akhrajahu lbukhaari wa fii riwaayatin riwaayad kale waxaa ku sugan oo lahu bukhaari u sugan ana uma salamata radia allahu canha aradtu way tusisay cuثmaan bn cabdillaahi shacara nabiyi sala اllahu alay wasalam rasuulka timihiisii bay tusisay axmara xaalo timaha rasuulka ay tusisay ay yihiin kuwa cas waxaynu ka baranaynaa abwaabtan ku saabsan timaha nebiga calayh الsalaatu wasalaam ana nabiya calayh الsalaatu wasalaam kaana yukrimu shacrahu rasuulku calayh الsalatu wasalaam timihiisa wuu hagaajin jirayoo waa maamuusi jiray ma dullayn jirin timaha rasuulku calayh الsalaatu wasalaam kuwa nadiifa bay ahaayeen rasuulku timihiisa waa subki jiray ma basaasin jirin waa feedhan jiray oo rasuulku calayh الsalaatu wasalaam maruu isagu markaa gacantiisa isula taga iyo mar ay dumarkiisu u feedhaan intuba waa dhici jirta laakiin arrinta ku saabsan shallaynta timaha iyo feedhistooda rasuulku ma joogteen jirin oo mid mar walba uu sameeyo may ahayn kaana nabiyu calayh الsalaatu wasalaam yatarajalu gibban ay xiinan bacda xiin rasuulku si joogto ah oo xidhiidha timihiisa uma feedhi jirine yacanaa mar buu feedhi jiray waa ka yaro dayn jiray tusalaan maantuu feedhanayaa berri buu ka daynayaa haddana saa danbuu feedhaya saas oo kale ummaddana rasuulku calayh الsalatu wasalaam taa waa u sheegay oo naha can itarajuli ilaa gibban inuu ninku isku mashquulo oo sida dumarka uu dee timihiisaba ka dhammaan waayo arrinta noocaasiya rasuulku waa diiday iyadoo timihii la ikraamayo la nadiifinayo o la hagaajinayo haddana in lagu mashquulo oo dee maalin walba iyaga un faraha lagula jiro arrintaasi ninkii xagga dumarnimaday u dhoweynaysa ninka raggana waxaa laga rabaa se cumar ibn khadaab radia allahu canhu uu ku taliyey rag waa in noqdaan rag ad adag sida dumarka oo kale wax jiljilicsan ninku inuu noqdo maaha oo faracasa waa inaad kuuliga gasho dhagaxa aad qaado si ay farahaaga u adkaadaan fara yaroo cascasoo markaad wax yar qabataba biyo ay gelayaan looma baahna taasi raganimada meel bay kaga dhacaysaa sida cumar ibn khadaab radi allahu canhu taladu bixiyey waxa weeye tamacdadu wakshawshinu yani ninkii macd la odhan jiray oo nin adag ahaay oo raganimo iyo adaygu ka muuqdo ninkaa ku daydo sidiisoo kale noqdo ikshawshinu macnaa khushuunada iyo adeyga iyo qalafsanaanta xagga jidhka ku dadaala marka cuntada faraha badana ku balqinaysa ee suurada dumarka oo kale kuu yeelaysa
iska ilaali jimicsigana ku dadaal sheekhuna sheekh muqbil raximah llahu tacaala aad buu ardaydiisa ugula talin jiray inay jimicsadaan lugee gaadhi una saarnaane jimicso oo waxa weeyaan orod iyo jimicsiyada kale intaba samee arrintaas caafimaadkaaga qeyb ka noqonaysaa gabowgay arrintaasi ka hortegaysaa haddii ilaahay subxana watacaala ajasha uu ku dib dhigo saasoo kale waxay kaa dhigaysaa qof wax qabsan kara waxay kaa dhigaysaa qof firfircoon oo xataa cibaadaadka gudashadoodu ay aad iyo aada ugu fududahay